الله دلتي أدوهن كوكو درجة dhawaaqaaga dhulmaara iyo dhagaysi wacan allow si wanaagsan howshina ay ku fusho nima ilaahay karaamay laguma karo qaar iyo farmaajo iyo dadka daba joogo iyo dadka taacsan waxa u rajaynayaa guul barwaaqo bashbash waxaan u soo baxnay maqaamka muqdisho oo maantay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanku ay go'aan ku gaareen inay muqdisho maqaamkeedii ay siiyaan waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay jiro jooga waxaan leeyahay weligiin hoggaanka haya waxaan halkaan aan ayidaynaa go'aankii madaxweynaha shalay oo ku ayiday oo ku codsaday baarlamaanka inuu maqaam loo dhiso gobolka banaadir madaxweyne go'aankaada ayaan garab taagannahay madaxweyne waxaad noo caddaysay inay xuduntaada ku duugan tahay gobolka banaadir madaxweyne kor allah kaa dhigo naafada gobolka banaadir waxaa weeye dadka nolosha iyo nabadda iyo sharcigaba u baahan door muuqda ayuu qaatay hadday ahaan lahayd waxqabadkiisii muddadii uu joogay iyo meesha maantay oo codsigiisa wakhtigii ku habboonaa oo meel fagaaraha uga jeediyey golaha baarlamaanka labadaba dadka magaaladan muqdisho iyo bulshada gobolka banaadir ayagoo ka turjumaya dareenkooda ku aadan taageerada madaxweynaha ee codsiga u jeediyey golaha baarlamaanka ayay maanta isugu soo baxeen dhowr goobood 4 goobood oo waaweyn oo ay iyagu go'aansadeen inay ku muujiyaan taageeradooda mudanayaal iyo marwooyin waan idinkaga mahad celinaynaa sida aad u muujinaysaan shucuurtiinna sida ay idin nuuxisay ay idin dhaqaajisay dareenkiinna u kicisay codsigii madaxweynuhu u jeediyey golayaasha baarlamaanka arrintaas oo aan filayo in jawaab degdeg ah oo dhammaan bulshada gobolka banaadir ay ku farxaan inay ka imaan doonto waan hubaa golayaasha baarlamaanku ma aha damiir laawayaal waa dad garanaya waxa ay ugu fadhido magaalada muqdisho malaayiinta ku nool halkan iyo sida ay ugu heegan yihiin garab istaagga dawladdooda baarlamaankooda amniga ka shaqaynta danta guud mar haddii ay iyagoo markhaati ka yihiin doorka aad ku leedihiin dawladnimada Soomaaliya dhidhiba u aasideeda